Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan si qoto dheer u baran doonaa taariikhda Soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska Afrika, lehna xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, dhererkeeduna ka badan yahay 3 oo kiiloomitir. Taariikhda Soomaaliya ma aha oo keliya sheeko ku saabsan dagaallo iyo siyaasado. Waa sheeko ku saabsan ganacsi, ilbaxnimo, halgan, adkaysi iyo rajada shacabka Soomaaliyeed. Aan bilowno safarkan taariikhiga ah. Soomaaliya waayihii hore. Kumanaan sano ka hor, dhulka Soomaaliya waxaa deganaa bulshooyin ku noolaa xoolo dhaqashada, kalluumaysiga iyo ganacsiga. Xeebaha Soomaaliya waxay xiriir ganacsi la lahaayeen Masar hore, Carabta, Faris, Indiya iyo dhulal kale oo ku teedsan badweynta Hindiya. Ganacsatada Soomaaliyeed waxay dhoofin jireen foox, malmal, xoolo nool, harag iyo alaabooyin kale oo qiimo badan. Dekedaha Soomaaliya waxay ka mid ahaayeen meelaha ugu mashquulka badan ee ganacsiga bariga Afrika. Soo gelitaankii Islaamka. Qarnigii 7aad, diinta Islaamka waxay si nabad ah ku soo gaartay Soomaaliya iyadoo loo marayo ganacsatada Carabta. Dad badan ayaa si tartiib ah u qaatay Islaamka, wuxuuna noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha bulshada Soomaaliyeed. Waxaa la dhisay masaajido, xarumo waxbarasho iyo magaalooyin caan noqday. Boqortooyooyinkii Soomaaliyeed. Qarniyadii dhexe Soomaaliya waxaa ka jiray boqortooyooyin iyo suldaanno awood leh. Waxaa ka mid ahaa boqortooyadii Ajuuraan oo caan ku ahayd nidaam dawladeed oo xooggan, beeraha iyo maamulka webiyada. Waxaa sidoo kale jiray suldaanadii Geladii, Hobyo iyo Majeerteen oo door weyn ku lahaa ganacsiga iyo siyaasadda gobolka. Boqortooyooyinkaas waxay xiriir ganacsi la lahaayeen Carabta, Hindiya iyo Shiinaha. Xilligii gumaysiga. Dhammaadkii qarnigii 19aad, quwadihii reer Yurub waxay bilaabeen tartankii lagu qaybsanayay Afrika. Soomaaliya waxaa loo kala qaybiyey dhowr maamul. Ingiriisku wuxuu maamulay waqooyiga. Talyaanigu wuxuu maamulay koonfurta. Faransiisku wuxuu maamulay dhulka maanta loo yaqaan Jabuuti. Itoobiyana waxay la wareegtay dhulka Soomaali galbeed. Kala qaybsanaantaasi waxay saameyn weyn ku yeelatay shacabka Soomaaliyeed. Halgankii daraawiishta. Mid ka mid ah halganadii ugu waaweynaa gumaysiga lagula dagaalamay wuxuu ahaa halgankii daraawiishta. Waxaa hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Muddo ku dhow 20 sano ayay daraawiishtu la dagaalamayeen ciidamada gumaysiga. Inkastoo ugu dambeyn la jebiyey sanadkii 1920, halgankoodu wuxuu noqday astaan geesinimo iyo difaac madax bannaani. Halgankii xorriyadda. Dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxaa xoogaystay dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonka. Waxaa la aasaasay ururo siyaasadeed oo ay ka mid ahayd Somali Youth League. Ururadaasi waxay shacabka ku dhiirigeliyeen midnimo iyo madax bannaani. 26 Juun 1960 waqooyiga Soomaaliya wuxuu qaatay xorriyadiisa. 1 Luulyo 1960 koonfurta Soomaaliya waxay qaadatay xorriyadda, waxaana labada gobol midoobeen si loo dhiso Jamhuuriyadda Soomaaliya. Taasi waxay ahayd maalin taariikhi ah oo shacabka Soomaaliyeed u ahayd farxad weyn. Dowladdii rayidka. Sanadihii ugu horreeyay ee xorriyadda Soomaaliya waxay lahayd nidaam dimuqraadi ah. Waxaa la qabtay doorashooyin, waxaana jiray xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan. Inkastoo ay jireen caqabado dhaqaale iyo siyaasadeed, haddana dowladdu waxay ku dadaashay horumarinta waxbarashada iyo adeegyada bulshada. Afgambigii 1969. 15 Oktoobar 1969 waxaa la dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Kadib 21 Oktoobar 1969 ciidamada qalabka sida ayaa Afgambi kula wareegay talada dalka, waxaana hoggaanka qabtay Maxamed Siyaad Barre. Waxaa la hirgeliyey nidaam hanti-wadaag ku salaysan. Waxaa la bilaabay olole ballaaran oo lagu barayo dadka akhriska iyo qoraalka. Waxaa sidoo kale la hirgeliyey mashaariic horumarineed oo dhinacyo badan taabanayay. Dagaalkii Ogaadeen. Sanadkii 1977 Soomaaliya waxay dagaal la gashay Itoobiya. Bilowgii dagaalka Soomaaliya waxay gaartay guulo ciidan. Laakiin markii dambe taageero militari oo caalami ah ayaa Itoobiya heshay, taasoo sababtay in Soomaaliya dib uga baxdo inta badan dhulkii ay qabsatay. Dagaalkaasi wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. Burburkii dowladdii dhexe. Sanadkii 1991 waxaa burburtay dowladdii dhexe. Waxaa bilowday dagaallo sokeeye oo sababay burbur baaxad leh. Malaayiin qof ayaa ku barakacay gudaha iyo dibadda dalka. Kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada badankood way burbureen. Dib u dhiska Soomaaliya. Laga soo bilaabo sanadihii 2000 meeyadii waxaa jiray dadaallo badan oo lagu soo celinayo dowladnimada. Waxaa la dhisay hay'ado dowladeed oo cusub. Waxaa dib loo furay iskuulo, jaamacado, dekedo iyo garoomo diyaaradeed. Inkastoo ay weli jiraan caqabado amni iyo kuwa siyaasadeed, Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin dib u dhis ah. Taariikhda Soomaaliya waxay ina baraysaa in dal kasta uu maro waqtiyo adag iyo waqtiyo wanaagsan. Waxay ina tusaysaa muhiimadda midnimada, nabadda, waxbarashada iyo wada shaqaynta. Jiilka maanta iyo kuwa berri waxay door weyn ku leeyihiin dhismaha Soomaaliya. Haddii aan ka faa'iidaysano casharada taariikhda, waxaa suurtogal ah in Soomaaliya ay gaarto horumar waara. Mahadsanidin daawashada. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, la wadaag asxaabtaada, kana qayb qaado faallooyinka adigoo noo sheegaya qaybta taariikhda Soomaaliya ee aad ugu xiisaha badan tahay. Ha iloobin inaad subscribe garayso kana shido gambaleelka si aad ula socoto muuqaalada cusub. Ilaa muuqaalka xiga, nabadgelyo.